dhiirigelinta dhalinyarada Soomaalida ee la hal-abuurka iyo hoggaanka ayaa looga hadlayay kulankan ballaaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho maadaama dhalinyaradu ay yihiin awood muhiim ah oo dalkeenu leeyahay ayna laga maarmaan tahay in loo rumeeyo hamigooda. Kulanka uu soo qabanqaabiyay urur dhalinyaro lagu magacaabo Banana Group oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo boqolaal dhalinyaro ah. dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb gala kulanka ayaa ku soo bandhigay hal-abuur ay sameeyeen oo ay ka mid ahaayeen ururka ubaxa caasimadda oo Muqdisho laamiyeeda ku abuuray ubaxyo ka qayb qaadanaya bilicda caasimadda iyo urur lagu magacaabo Qaranjoog oo istaagay in dhalinyarada Soomaalida uu ka wacyigeliyo dhibaatooyinka tahriibka iyo kuwa kale oo badan oo sameeyay fikirro guuleystay. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Banana Group ayaa tilmaamay in hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay in dawladda ay ka helaan dhiirigelin. Hogaamiyaha wanaagsan waa midka dadka u horseeda noloshooda inay isbedesho ay ku noolaadaan nolol wanaagsan, farxad leh, barwaaqo leh. Mudane wasaare qaleetaan aad u jeedaan waxay u caaboo yihiin oo u helan yihiin inay bartaan hoggaan wanaagga si ay u hoggaamiyaan dadkooda ugana samatadixiyaan dhibaatooyinka daafeeyay. Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka, ayaa xustay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la shaqeeyaan dawladda oo iminka wada barnaamijyo lagu horumarinayo. maadaama intaasoo horumar baaxad weyn leh oo waxqabad loo nasiib iyo fursad ilaahay kuu siiyey ayagana u siiyey dhalinyaradeenna waa lagama maarmaan marka dawlad iyo dhalinyaro wada shaqeeya inay dadku ahaadaan haddii allaha awoodda la ogolaado si dhalinyaradeenna marka ula noqdaan dhalinyaro dawladooda garab taagan ayagana ku tiirsan dawladooda. waxaan weydiinaynay qof kasta iyo nidaam shakhsi uga dhacaya weydii saaxiibka. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka hadlay kulanka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka dalbaday in amniga ay kala shaqeeyaan taasina ay suurto gelinayso horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed. mar labaad iyo mar saddexaad ka codsana dhalinyarada amniga ka shaqeeya haddii amniga ka shaqeeya waxbarasho helaya caafimaad helaya nolol helaya amnigu waa muhiim asaas wuxuu yahay nolosha abkiisa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo khudbad dheer oo dhiirigelin ah u jeediyay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa u tilmaamay in barbaarta Soomaalida ay yihiin milkiilayaasha dalka loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa sharaftii iyo karaamadii uu caalamku ku lahaa dalkeenu. waxaa muhiim ah marka inaad ogaataan bulshada meesha aad ku jirtaan. waa inaad ogaataan inta idinku aad tihiin. waxaad tihiin milkiilayaasha dalka. meesha wasiir Khadiija, wasiir Ducaale iyo anugu hadda waxaan nahay mas-uuliyaasha dalka, mas-uuliyiinta dalka. idinkuna waxaad tihiin milkiilayaasha dalka. markaa milkiilaha mas-uulka u taliya soo maha. maadaama marka idinku aad tihiin milkiilihii mas-uulka u talinahay ciddii dalka lahayd cidda la rabo dalka inay ilaalisataya waa marka yaa laga rabaa dalkan inay ka ilaaliyaan inuu waddada wanaagsan ka leexdo. yaa mustaqbalkii ka horeeya oo mustaqbalkooda hadda bilowa. yaa laga rabaa in loo reebo dalka wanaagsan dalkan. so idinka ma idinku marka waa inaad u dhaqantaan inaad tihiin milkiilayaasha waddanka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii uu soo dhamaaday kulankii looga hadlayay dhiirigelinta hal-abuurka iyo hoggaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dhalinyaro kala duwan waxa uu kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho si uu u dhageysto rabitaankooda ku aadan qaabka ay rabaan inay u shaqeyso dawladdu kuwaad ugu faraxsan inay arkaan ra'iisul wasaarahooda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.